Asalaamu calaykum. Cashirkan waxaan ku qaadanaynaa font family iyo font size. Font family iyo font size labaduba waxay naga saacidayaan qaabeynta farta nooca fareed ay noqon doonto iyo size-ka farta intoo la ekaan doono. Font family waxaa loo isticmaalaa farta way kala qaabab duwan tahay, far walba waxay u qoran tahay qaab. Marka font family waxaa u qoranaysaa farta aad rabtid. Sidoo kalena font size waxaa loo isticmaalaa farta intay la eg tahay size-keeda. Farta size-keeda intaa la ekeysiinaysid haddaa rabtid inaad farta size-keeda aa weyneysid, haddaa rabtid farta size-keeda inaad yareysid, hadba size-ka aad rabtid. Waxaa isla fiirin doonaan font size-ka waxyaabaha lagu cabiro pixels em-ka iyo waxyaabay ku kala duwan yihiin font size-ka waxyaaba loo isticmaalo. Marka waxaan ku hormaraynaa font family. Marka hore waxaan soo gashanaynaa 3 paragraph oo kale aan rabno farta inaan kala aragno. waxaan isticmaalaynaa lorem oo free text ah. lorem 6 oo kale wuxuu kusoo gelinayaa 6 eray. marka just waa badsanayna marka lineska shift alt iyo falaarta hoose isticmaalaysaa down array. 3 mar noo koobiyey marka save dhaanaynaa. just marka css-keena waa inoogu xiran yahay, waa kana faalkeena css-ka. marka waxaan kasoo qaadaynaa oo kale paragraph oo kaleeto ama boodiga. badanaa font family waxaa loo isticmaalaa boodiga guud si maxaa lalahay doon far walba oo kuugu jirto website-kaada u lahaato hal font family. haddii aad rabtid paragraph ama qayb ka mid ah website-kaada qoraalkiisa inaa font family gooni aad siisid, just that tag ama that element si qaasa loo siiyaa, but almost guud ahaan markaa wada siinaysid waxaa la geliyaa font family-ga boodigaada. waxaan isticmaalaynaa property-ga font family. marka fartu hadda way inoo soo saarayaa maxaa lalahay toole visual studio-ha qoraalkaa isticmaali doono. farta ugu horeysa waxaan ku tijaabinaynaa arial. ugu horeysa capital inay tahay jecle. hadda markaan save dhahno farta wax yar way soo yar burito. marka almost markaa font family isticmaalaysid waxaa la sameeyaa inaa isticmaashid at least 2 far ama 3 far. browserka haddii uusan fartan uu soo qaban waayo oo browserka laga waayo fartan, next wuxuu qaadanayaa farta ku xigto qaadanayaa markaas oo waxaa u dhexeysiinaysaa comma. next faraad isticmaali kartaa. farta waxay u kala baxdaa macnaha font family-gu wuxuu u kala baxaa 2 qaab uu leeyahay, generic family iyo wuxuu kaloo leeyahay font family. marka generic family oo kale waxaa la yidhahdaa hadda marka hadda tiradeedo kaleento serif oo kaleento markaa tirada waxay u taagan tahay Times New Roman iyo George oo kale u taagan tahay. macnaha generic family waxaa laga wadaa farta guud ahaaneed. macnaha marka farta iyadoo isku eg macnaha ay haddana kala magac duwan tahay iyagoo farqa yariis u dhexeeya macnaha. marka font family waxaa la dhahaa inaad sheegtid specific fonts oo kaleento, fonts kala duwan oo kaleento inaad sheegatid. oo marka mostly waxaa la isticmaalaa 3 far oo kaleento si browserka mar haddii farta koowaad laga waayo uu farta koowaad kaaga xusho. hadda tusaale waxaad tirahdoo kale arial haddii tirahdoo kaleento. arial markii browserka laga waayo browserka wuxuu isticmaalaa farta helvetica u isticmaalaa. haddii helvetica laga sii waayo then wuxuu isticmaalaa sans serif u isticmaalaa. hadda 3 faraad soo sheegna fartan koowaad haddii browserka laga waayo wuxuu qaadanayaa helvetica u qaadanayaa fartan labaad. haddii fartan labaad laga sii waayo browserka wuxuu qaadanayaa sans serif u qaadanaya. marka almost waxaa la isticmaalaa 3 ama 2 font family kala duwan la isticmaalaa. marka hadda save dhahno farta wax yar way soo yara kacday oo way soo yara buuratay. marka haddii xataa oo aad soo gashanaysid Google Fonts oo kale oo Castrana ka soo gashanaysid, simply waa sheegi kartaa oo magaca fartaas ayaa u hormarsan kartaa. marka haddii magaca farta laato kaleeto marka Google Fonts ka soo qaadanaysid marka Google Fonts ka soo qaadatid waxaa la isticmaalaa comma ama iskale quotation la isticmaalaa, double quotation la isticmaalaa. markaas aad sheegaysaa fartaas then comma loo isticmaalaa. haddii farta tusaale Castrana oo kale haddii farta ka badan tahay 2 xaraf oo kaleento oo Times New Roman oo kaleento haddii farta tahay hadda markaa san nahno Times New Roman oo kale marka hadda dhahno fartu
halkii eray oo kale inta waxay u taagan tahay far. Marka intaan oo kale hal far waaye, laakiinse waxay noqonaysaa 3 xaraf ay noqonaysaa. Marka waxaa la isticmaalaa double quotation aa la isticmaalaa. That means marka waxay caddaynaysaa inay hal magac tahay. Macnaha haddii magaca farta uu ka badan yahay hal xaraf, haddii uu ka badan yahay waxaad isticmaalaysaa double quotation aa isticmaalaysaa si ay ugu taagnaato hal far oo kaleeto, si ay ugu taagnaato macnaha. So font family fududay magaca farta aragtida oo kaleeto aa sheegaysaa le bis. Farta marka way kala duwanaanaysaa marka. Hadda markaa fiirino font family macnaha hadday Times New Roman noocan u eg tahay. So markaa kasoo gudubno font family-ga waa u nimaano font size-ka. Font size-ka macnaha waxaa lagu cabiraa farta size-keeda intuu la egyahay. Hadba fartaada size-keeda intuu uu la egyahay. Property font size macnaha font size-ka waxaa loo isticmaalaa dhahna in fartaada cadadkeeda intuu la egyahay inaad sheegtid. Fartaada hadba weyninkaa ka rabtid ilaa intay la ekaanayso. Marka font size-ka oo kaleeto mostly laba lagu cabiraa, em iyo px. Px iyo em marka labadoodaba waa isla fiiri doonaa. Marka hadda waxaa dhahnay 20 px oo kaleeto farta way soo yimaada. Marka inaan mid ogsoonaati waaye maxaa la dhahay by default farta markaa qortidbo 16 px waaye by default farta. oo farta marka browserka lagu soo bandhigayo default ahaan haddaadan font size aadan u yeelin 16 px ay qaadanaysaa. Marka hadba intaa ka rabtid weyninkeeda ayaad ka dhiganaysaa 40 px, 20 px, 23 px ilaa inta aad doontida ka dhigan kartaa macnaha. Marka px-ka iyo em-ka waxay kula duwan yihiin. Waxay tahay hadda px-ka 16 px oo kaleeto by default waa dhahan. Marka em markii lagu cabirayo 16 em ma dhihis macnaha. Hadda markaa fiirino 16 em oo kaleeto farta intee la ekaanaysa fiiri, halka xaraf waa laga yaabaa inuu shaashada qabsado. That means macnaha 1 em ayaa waxay u dhigmataa 16 px macnaha 1 em hal em ayaa wuxuu u dhigmaa 16 px. oo hadda markaa dhahno 2 em wuxuu u dhigmaa 32 px u dhigmaa because of 16 px-ku waxaa la mid ah 1 em la mid ah, oo 1 em-ku wuxuu u taagan yahay 16 px oo kale u taagan yahay. Marka hadda 1 em san waa sidoo kale waxaa isticmaali kartaa tiraja waa isticmaali kartaa 1.2 em aa dhigi kartaa normal waa ku shaqeynaa macnaha. Marka mostly waxaa fiican in em ta la isticmaalaa fiican. So px em aa wacan, laakiinse markaa bilowta oo kaleeto waxaa ku wanaagsan px oo kaleeto. oo px-ka aduu ujeedada intaad rabtid u gashan kartaa, laakiinse em-ka hal mar ay kaa boodi. Hadda adoo 1 em tiraado kaleeto oo 1 em by default hadda oo waxaa maagi 2 ama 3 ka dhigo farta zaaid u soo weynaanay. laakiinse px markaa isticmaalayso oo kaleeto si step step ayaa farta ula socon kartaa stage-kii marayso. oo mar walba wax yar ku dari kartaa 22 oran kartaa wax yar iga soo roonaanay. Marka beginnerska waxaa u fiican inay pixelska isticmaalaan ilaa intay advanced ka gaarayaan. Marka font size-ka intaan waa cashirkeena font size-ka intaan ku egyahay. Font family-gana waxaa loo isticmaalaa dhahna farta nooceeda hadba fartaada nooca ka rabtid. Arial oo kale hadda dhigi karnaa haddana way kasoo yara mudoobaatay oo maxaa la dhahay Times New Roman-ka bold maahan, laakiinse Arial-ka bold waa. Marka farta raadi maxaa la dhahay font family-ga farar badan aad jirto oo kala nooc ah oo browserka ka fiiri kartaa css font families iyadoo badan far walbana nooca u qoran tahay arki kartaa waana soo gashan kartaa. sidoo kale font size-kana saana u isticmaali kartaa px em. marka cashirkeena intaan ku egyahay. wassalaamu calaykum.